السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adduunkan aynu ku noolnahay kadeed iyo mashaqo dhibaato iyo mashaakil kama dhamaado waana sunno kowni ah oo qof kasta adduunka ku nool soo food saari karta oo mar iyo laba iyo saddex ayuu qofku iyo in ka badan ayuu qofku dhibaato iyo mashaakil iyo masiibo uu la kulmi karaya. waana sunno kowni ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bini aadamka ku dhex abuuray laqad khalaqna al-insana fi kabad ba Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala bini aadamka waxaan ku dhex abuurnay oo la abuurnay dhibaato iyo mashaakil iyo kadeed qof kasta ee naga mid ah aniga iyo adiga iyo qof kasta ee daawanay qof kasta ee bini aadam ahna dhibaatadaas mar iyo laba iyo saddex iyo marar badan baa la kulmi kara qof kastana iimaankiisa iyo diintiisa inta la egta ayaa ibtilihiisuna la ekaanaya nabiga alayhi salatu wasalaam ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma salihuna thumma al-amthalu fal-amthal qof kasta inta iimaankiisa la egyahay ayaa maaragtay dhibaatadiisa la ekaanaysa oo ambiyada Ilaahay oo dadka ugu iimaan iyo diin weyna ayaa dhibaatada ugu maaragtay weyn saalixiinta ku xiga kuwa ku xiga culimada dadka ku xiga si isugu xigaan bay ay ugu sii xigaan yubtala ar-rajulu ala hasabi diinihi qofka waxa la ibtilaya inta diintiisu ay la egtahay hadaba dhibaatadu waa iyo ibtaluhu oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu balan qaaday maaragtay qofka si adduunkan joogay si uu la kulmayo lanabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati ba Ilaahay leeyahay oo maaragtay waxaan idinku imtixaamayna oo idinku ibtalaynayna maal leedinka nusqaamiyo naf leedinka nusqaamiyo ay jeceshiin oo leedinka aad weysaan thimarti wixii aad ku nooleedeen oo leedinka nusqaamiyo خوف iyo baahi intaba wad la kulmaysan si siyaabaha kamida ba qofka loo imtixaankana macnaheedu qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo imtixaamayo mashaqada iyo dhibaatada iyo ibtilaa Ilaahay uu marsiinaya qofka oo waxa Ilaahay uu inoola abuuray waxa noo marsiinaya bal inaynu baranno oo aan qaabkan ula dhaqmayno oo ula tacaamul lahayn ula falgali lahayn ay noqoto qaab wanaagsan oo inagoo dhibaatadii ku jirna aan wax wanaagsan sameyn karno إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بل إن سمين كرنا وحو ناكسن إنه دبن أو مشاقة إيه مشاكل امتحان كجرنا إن وحو ناكسن أن سمين أو أنا امتحان كاس وسن دبا أو حمان وسن إنه هرسيدين أو دبات هذا إيه مشاكل كأن حمان إنه هرسيدين إن الله سبحانه وتعالى يقبل وحن سمين إن امتحان ككذب وواحد لنا يوقفك بين آدم كالله امتحامي إذن امتحانك iyo mashaakilka iyo dhibaatadu waa sunno kowni ah oo qof kasta ee bashar ah qof kasta bini aadam ah la gudboon oo maaragtay soo food saaraysa oo la gudboonaanaysa maalin hadii hadda ay ku soo mareen inta ku soo martay in kalena way ku dhimantaa hadaba su'aashu waxay tahay maadaama sunno kowni ah ay tahay sideen ula noolaan karnaa mashaqada iyo mashaakilka iyo imtixaanka waa mowduuca aan rabo inaan wax ka iraahdo waxaan rajaynayaa inaad la dhamaysan doonto hadii Ilaahay qadaro laba sifo hadii aad la timaado oo laba sifo ku sifowdo ama mid kamid ah aad ku sifowdo waxa ku fududaanaysa oo awoodi karaysa oo awood u yeelanaysa mashaqo iyo mashaakil kasta iyo dhibaato kasta iyo imtixaan kasta ee kula soo gudboonaada inaad la noolaan karto sifada ugu horeysa waa sifatu sabri qofka inuu sabir iyo dulqaad uu ku sifoobo sabirku waa sifo aziisa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay oo qofkii ku sifoobaana uu yahay qof nasiib badan oo dadka aan maaragtay marka dulqaadka iyo sabirka lahayn ka nasiib badan Ilaahay uu jecel yahay imtixaanka iyo ibtilaa Ilaahay uu balan qaado la nabluwannakum bi shay'in min al-khawf intaas oo dhibaato marka nala marsiinayo Ilaahay wuxuu u bishaareeyay wabashir saabiriin oo Ilaahay dadka sabra ee dulqaadka leh oo sabarka leh oo sifada sabirka ku sifooba u bishaareey idan sabirka Ilaahay uu jecel yahay subhanahu wa ta'ala inna Allaha ma'a saabiriin إن الله يحب الصابرين إلهي ذاتك الصبر يدلقات كله وجعل يهم عودنوية سأدرتيد صفة قفك إنه الصبر يدلقات أوليها أود ويعني كحمل كرو دباتك استيقظ لحظة وكحمل كرو ودلقات كرو وصفر أنتي قفك كسفة ونصيب بدني هاي واحد بدن كمان هايو قلب كلابات أما صفة اللبات وصفة اللي رهضو التصبر وحا عزيز قفك إنه نقض قف صبر بدن ووح عزيز ووح أن قف كستلقى هلي كرين ووح نادر وضدك قاربة صفة صبر كوسف وضدكم ما وضلها لكن التصبر وأذوق إن الصبر سيدو ودبعتها إيه مشاكل كإيه مشاقة كقول هذا أذوق أسهل ما نسيكرته الصبر سينكرته
haddii marka aad awood u leedahay inaad is-sabarsiido oo aad maaragtaanay haddii dhibaato iyo mashaakil ay kula soo gudboonaato adigu aad is-sabarsii karto waxba ma dhaantid qof sabir iyo dulqaad leh oo sifadii ilaahay jeclay subxaanahu wa tacaala ku sifoobay. Hadaba su-aashu waxay tahay sideen isu sabarsiin karaa ama anigu aan isu hilmaansiin karaa wixii ugu dhacay. Labadan kaarto haddii aad la timaado ama mid ka mid aad la timaado waxaad si fudud ku hilmaami kartaa ama aad isku sabarsiin kartaa si aad u fudud. Kaartada koobaad waa adigoo masiibadii iyo mashaakilkii wixii kugu dhacay u arka fursad ama khayr ka dhex raadiya. Mashaakilka iyo masiibada kugu dhacay يعني فرصة وبدلها أما خير كده حرادية. رجالبتك وحيدهان the problem is not the problem. The problem is how you see the problem. دبعتضو معها مدة قوضة على لفته يعني واحد قوضة معها دبعتضو وسيدة أدو دبعتضاس أدو غفل عالس سيدة أدو أترجمته how you translate the problem how you react to the problem دبعتضاس قوضة على سيدة أدو غفل عالسو أيها دبكو كإيمان كرا أما سيدة أدو غفل عالسان نقون كرتسي دبعتضي بوحفظ أي نقطة. kaartada ugu horeysa marka waa adigoo dhibaatada kugu dhacda ama mashaakilka kugu dhaca ama masiibada kugu dhacda yani khayr ama fursad u bedela ama khayrka dhex raadiya. Nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray dadka qof jiran haddii uu jira la irdaran haddii uu yimaado dahuurun laa ba'sa insha Allah yani wuxuu dhiirinayaa qofka inuu masiibada u arkin yani masiibada lafteeda inuusan problem u arkin inuu masiibadanba khayrka dhex raadiyo. qof xanuunsan hadduu yimaado wuxuu dhihi jiray laa ba'sa dahuurun insha Allah yani jiradan waxba ha u arkin waa ku dahiraysaa oo dambiyada aad gashay ka dahiraysaa. qofkii marka jirada iyo xanuunka uu la il daran yahay u arka in ay yani jaanis u tahay oo looga dambi badan uu galay looga tirtirayo there is no way oo marka jirada qofkaasi uu la xanuunsado oo uga murgo ma jirto. marka kaartada ugu horeysa ee qofku uu isku sabarsiin karo waa adigoo yani masiibadii laftirkeeda khayrka dhex raadiya adigoo masiibadii lafteeda u arka inay ayaduba khayr kuu tahay dhibaatadan kugu dhacday iyadaaba khayr kuu ah. waxaa jirta yani qiso nin boqor ahay baa waxaa la yidhi isagoo ciidankiisa ku dhex jiro faras ka soo dhacay yani ciidankii uu markaa boqorka u ahay isagoo ku dhex jiro faras ka soo dhacay markaasuu lug ka jabay. marka nin ciidankii ka midaba inta saa u fiiriyay wuri ma lug baad ka jabtaha fiihi khayrun laka insha Allah khayr baa kuugu sugan oo lugtaas aad ka jabtay يعني وهو قياس يعني وأذني إن خير وجري كارلوكتاس كجبته إن وحوير ما أنا لو إجابته وكفر حسين وري خير بقى وجر حبس على يجي نكى حبس أنت لوسي ودور ما حبس وإيه وضعها فيه خير لي إن شاء الله أنا كان خير بقى يجري كارور حبس على يجيني مركا حبس جيب على يجي نكى بقر كهاي وبانتلوكتي بقى وكبنتي مالين مالما كم إذا أيوب دجال آذي على مركا dadkii cadawgii uu la dagaalamayay inta isku war ka qabteen isagii ciidankiisa laga qabtay. markaas baa meel ay asnaamta ay dad ugu birayn jireen asnaamta waxay ahaayeen yani gaalo asnaam caabuda asnaamtaas ay caabudaan maalin kasta dad bay u qali jireen meel ay asnaamta dad ugu qali jireen bay inta geeyaan maaragtaanay birta la wada daray oo la wada bireeyay. boqorkii marka lagu yimid oo ciidankiisa la soo birbireeyay boqorkii lagu yimid saa loo fiiriyay اللي متكان ومعيب يعني متكان عيب وليه لو كجبيه أصنامتين ويكشرف بديه قف لو كجب إن أقلن يعني قف نافع إن أقلن وكشرف بدين إسكبح بالليل ننكي صبو يعني يابن وصابحي وكسرت بقر يعني مركو بقرطويدي سي مذا وحكو صار عنكي وحبس جاي هذا الكيس وعيد كيس كم ذا ننكي وحبس وقلت جورنيو lugtan iga jabtay aan maanta dartay u soo fakado horta khayr baa igu jira markii iga jabayso oo hadalkaaga run buu ahaa laakiin waxa ii sheegtaa adiga inaan xabsiga uga khayr kugu jira muxuu yahay adiga lahaay markii aad xabsiga aan ku diray khayr baa igu jira adiga lahaay adiga xabsiga khayr kugu jira muxuu ahaa wuxuu yiri taasana way fududahay haddaan yani banaanka joogi lahaa ciidankaagan ka mid noqon lahaa maanta anna waa la soo dili lahaa yani ciidankaas la soo bireeyay baan ka mid noqon lahaa يعني وحن خيب كما أركو لكن قفكو دبعتها كل عاد خير وكل حر عندنا كرا مصيبة ثانية مشاكل كان كل عا وأرك كرا إني تاي وح خير مركز عدد دبعتها بعض أركت إني بخير قوت هاي ما جرت ضيوي مركز عدد مرق كرت دبعتها داس قلب كلابد وقفكو اسكو صبرتي كرا ما كرتها لبعض قفكو استعمالك رسول اسكو صبرتيو وأذكر دبعتها كود عدد تسقير صداء ما يريستا أما الرادية دبعتها كوين وهذي كود دعي الهيد كاجس يدرنا الهيد يعني هذي مثلا أذيكو يعني كاجبان تاي أو قعني هذه كود على لكن كاجبان تاي لو تسقف قعني كجوض
yani dhibaato gacanta adiga jabkan uu kula yaraanaya, waxa kugu dhacay masiibada kugu dhacday wax yar bay kula noqonaysaa. haddii yani abaar ay xoolahaagii oo dhan dhameeyeen ee aad aragto qof macal xoolihii macal dadkii abaartu ay ka qaadatay oo abaartu ay ka dhamaysay, dhibaatadaada way yaraanaysaa. yani haddii markaa dhibaatada kugu dhacday mid ka weyn aad raadiso oo mid ka saameyn badnaa lahayd aad hortaada soo dhigato, there's no way haddana aad dhibaatadaas aad uga murugto haddayba dhibaatada kula yaraato. oo qofkan waxa adiga kugu dhacay iyo waxa qofkan ku dhacay ama qof kale ku dhacay intaad isu fiiriso waxa qof kale ku dhacay ay kula weynaadaan, taadu way kula yaraanaysaa. haddii taadu kula yaraatana markaas dhibaatadaas inaadan ka murginaysan kula weynaan, waxaad tasqiirsanayso يعني كما مرقيسي. وحاجر قصة عروة بن الزبير تابعي ويناي فقيه محدث كأها وكلا كرمي مقالة دمشق مرو ويري أن خليفة إسلام كا أن مركز حلقاس أن قامين إسلام كوليد بن عبد الملك. أن قصة سرنتي وحين حسوسين إسا أن مشاكل كدبعتها كود على مد كوين أو هديك ودعلت كقدر على دين جرته. أما قف ماركتاني أذيك كل مد دبعتها كود على وكدرسين يسدم مد هذا إنه يرتاح. أن عروة بن الزبير وحا يري وليد بن عبد الملك يسوق مدينة جوجا أيو يري ماركتاني أن دمشق wiilkiisa uu dhalay buu hore u kaxaystay meeshii buu ugu tagay Dimashq ugu tagay culimadu caado uma lahayn inay madaxda albaabada madaxda ay istaagaan laakiin waxay ka dhex arkayaan hadii uu maaragtay madaxa uu yeero jaanis ay dacwada ku gaarsiin karaan xaq ku fahamsiin karaan oo wixii ka qaldan ugu sheegi karaan marka uu tagay aad baa loo soo dhaweeyay habeenkii markuu hayday wiilkiisii yaraa ee uu hore u soo kaxaystay ayaa isagoo yani qasrigii ku dhex wareegaya oo meelaha fardihii madaxda yani fardaha boqortooyada isticmaalaan oo dadka madaxda isticmaalay kuwa shacabka isticmaalaan isma lahayn de farasku sida haddaba ay baabuurtu tahay manzilada baabuurtu ku taagna oo baabuurta ninba ka darajo sareeyo ka baabuur qurxoon xilligaas marka fardihii uu arki jiray fardaan ahayn oo arkay wiilkii markaas inta dhex galo isagoo yani isaga dhex damaashaaday ayaa mid kamid ah fardihii haraati wadnaha ku dhifatay halkiina ku dhintay wiilkii yaraa Urwa ibn Zubayr hore u soo kaxay soo dhalay wiilkii baa xabaasha la geeyay waa la soo aasay intii la aasay baa Urwa ibn Zubayr isagii baa waxa ku dhacday in yani xoogaa lugtiisii baa dhaawac yar soo gaaray yani waxba qalay ama qorayo kala miday dhaawac yar baa loo maleynayay yani wax yar baa loo maleynayay laakiin way weynaatay way barartay lugtii baa waxay noqotay in la jaro wax allaale iyo wixii maadaama uu aad uga murgay Waliid ibn Abdul Malik wuxuu aad uga murgay يعني ninkii dayfkiisa ahaa wadana nin weyn oo sheekh weyn oo laga heebeysto waa marka sheekhii weynaa iyo ninkii dayfkiisa ahaa masiibada uu soo hogaamiyay agtiisa kula dhacday isagoo la murugsan ayaa wuxuu isugu yeeray wax alaala iyo wixii dhaqaatiir uu heli kara dhaqaatiirtii mid kasto arkay wuxuu yani wax iyagu dhanba ay isku raaceen ninkan in lugtiisa in la jaro ay tahay قصة دير واي يعني لوكتي ولا جرى عروة بن الزبير لوكتي ولا جرى ولا جرى مركي لوكتي ولا جرى أيا وليد بن عبد الملك وحؤاد وجمر كين كان ضيف كيس شيخ وين ومارك تاني ويري هذانا لنك الهدي لقى في ريو مصيبه رير يعني أن عبد الله بن الزبير وحب مصيبة أقوين أيوة تمد بالرب بن أمية أن أبيس وليد بن عبد الملك أبي عبد الملك بن مروان بالاي ولا ليس وعبد الله بن الزبير سجع دولتي سيباد الشيء أو مصعب بن الزبير يعني ولايته دي قنبة يجاد الدمي مركا مصيبة بس ملك يعني أيجي بقى فامل كان عائلة ذا نبع عائلة ذا مصيبة قطع سجوا مركا لم ركسن دبعت هذا يعني أكتي سكولا دعذي مارك ذا مصيبة ذا كولا دعذا وحقوي مد وفدي أن صوب وقناي يعني خلافة أو بقر كسب وقناي oo reer bani cabsi inay ahaayeen baan jeclahay baa u yimid nin kamid ah oo wafdiga la socday oo indhala ayba wareystay wuxuu balka wareystay sida sababta sida uu ku indhabeelay marka ninkiiba u sheekeeyay Urwa ibn Zubayr wuxuu ku yiri waxaan ahay nin family qabiilka aan ka soo jeedo ninka ugu hantida badan oo awlaada iyo maalka badan baan ahaa maalin maalmaha kamid ah waxaan deganay buu yiri tog ama waadi meel yani biyuhu ay maraan habeenkii inagoon iska jirin oo filayn baa waxa nagu yimid biyo daad socda markaas oo wax allaala iyo wixii aan lahaa maal iyo awlaad iyo xoolo wixii aan lahayo dhanba waa iga qaatay waxa ii soo haray oo ii reeba hal wiil oo saqiir ah oo bila jira iyo ratiyar oo qurbac ah marka
markaan masiibadaas ugu dhacday baan waxaan maagay inta ii hartay inaan badbaadsado, yacni caanadaa dabadooda la qabtay, bal wiilkaa yar iyo ratigaa inaan badbaadsado. wiilkii baan soo qaatay, ratigii baan maaga soo hogaami, soo xiriiri. markaan yacni ratigii u tegay, rati wuxuu ahay buubu iga cararay. markuu iga cararay baan maagay buu inta wiilka dhigtay, ratiga ka daba tag. wiilkii baan meel dhigtay, markaan saa uga dhaqaaqaba wiilka qayladiisii baan maqlay. wiilkii baan gadaal usoo fiiriyey, waraabaa cunay. wiilkii ilma iiga haray oo dad iiga haray horteydii baa waraaba ku cunan, ka cesha way. ratigii baan isiri bal isagaa marka kuu haray, isagii soo xiriirso. ratigii baan ka daba tegey. markaan ku dhawaaday buu haraati wejiga ugu dhiftay, indhahaygiina halkaasaan ku waayay. waagu wuxuu ii bariyay, habeenkii waxaan seexda anigoo qani ah oo maal iyo awlaad ilaahay i siiyey dhex jiifa. subaxdii waxaa waagu ii bariyay anigoon caafimaad hayn, oon awlaad hayn, oon maal hayn. yani waa nin masiibo aan laga sheekayn karan ay ku dhacday. markuu qisada uga sheekeeyeyba wuxuu inta aad ula yaaba ninkan. wuxuu yiri ninka xaajibkiisa inta u dhiibay, yiri ninkan inta wadid Curwat ibn Zubayr u geey, ha uga sheekeeyo bal waxa ku dhacay. marka ninkii waa u geeyey, wixii ku dhacay buu uga sheekeeyey. Curwa marka wixii yani ninka ku dhaca markuu arkay, waxa u ziyaaday sabirkii iyo dulqaadkii uu adkeysanay wixii isaga ku dhacay. wiilkiisii baa meesha ku dhintay, lugtiisii baa meeshan uu ku waayay. wixii ku dhacay yani wax ka weyn baa looga sheekeeyey, masiibo ka weyn ayaa looga sheekeeyey. isagoo awalba nin adagoo dulqaad iyo adayg leh ahay, haddana yani waxa u ziyaaday sabirkii iyo dulqaadkii markii middaa looga sheekeeyey. alcumuum mashaakilka iyo dhibaatadu waa wax jira oo nolosheenna qayb ka ah, waa waxaan maaragtaani aanan mogaanayn oo sinaba aanan u mogaanayn oo na saameynaya, oo mar iyo 2 iyo 3 iyo 10 jeer iyo 100 jeer ba nala gudboonaanaya, na saameynaya. marka qofka hadduu sabir iyo dulqaad leeyahay oo ilaahay awooddaa siiyey waa gaar. haddii uusan lahaynna inuu isi sabarsii karo isagoo labada kaarta isticmaalaya waa lagama maarmaan, si uu markaa ula noolaan karo dhibaatada iyo mashaakilkaas iyo masiibada ku dhacday. runtii mowduucan waxaan usoo qaatay dee xilligan waa xilliyada ugu dhibaatada badan ee dadka Soomaaliyeed ay ku jiraan. abaara iska jira, dhibaatooyin, qaraxyo iyo masiibooyin badan baa iska jira. wax badan baa kula soo gudboonaanay. haddana xilligan dee sicirkiiba waa qaaliyo, dadkii waxaa laga yaabaa wixii ay haysteenba inaanay ku filnaan. marka dhibaatooyin badan baa iska jira, dhinac kasta laga soo wajahaya, culays baa lagu saaraya. haddii culays kugu yimaado oo culays iyo cusri iyo mashaakil iyo kadeed uu kugu yimaadana ogow, ilaahay subxaanahu wa tacaala cusriga iyo culayska wuxuu kuu saaraya. waxaa ka mid ah inaad fahamto macnaha aayaddan qur-aanka ah, fa ina maca alcusri yusran, ina maca alcusri yusran. muxuu yihi ninkii gabayaagii carbeed, idaa alqa azamaanu calayka shara wasaara alcayshu fii dunyaaka mura falaa tajzac lixaalika bal tadakar fakam amdayta fi lkhayraati cumra. haday dhibaataiyo mashaakil iyo waxaanoo culayso kugu dhacaan, ogow yani ha fiirinin bis dhibaatada kugu dhacdee imisaad adiga laftirkaaga aad khayr soo daaqaysa, bal dib isu xisaabi. wain daaqat calayka alardu yowman wabitta ta'inu min dunyaaka qahra farabu lkowni maa abkaaka ilaa litaclama ana bacda alcusri yusra. ilaahay muxuu kaaga ooyanaya subxaana wa tacala? muxuu mashaakilka iyo dhibaatada iyo culayska kuu marsiinayaa? litaclama ana bacda alcusri yusra. wain jaara azamaanu calayka fasbir wasal mawlaaka tawfiiqan waajra lacala allaha an yujziyaka khayra wayamla'a qalbaka almaksura sabra. wain jaara sadiiqu calayka dulma waqaabalaka alwafaa bucdan wahajara falaa taczan calayhi wacish caziizan faqad kunta alwafiyu wakafaaka faqra. wain safat alxayaatu calayka faxdar faruba baliyatin ta'tiika qadra wakam min mutrafin bilmaali fiiha faasbaxa yartadii dullan wafaqra. imisa iyagoo maal iyo maaragtaanay iyo raaxo isaga jira oo maal isaga raaxaysanaya, yani dulli iyo faqri mid la hooseeya noqdo muddo yar kadib. wakam fi nnaasi duu mulkin cadiimin waqad malaka dunaa baran wabaxra fabacda almulki waafathu lmanaaya waudkhila fi dalaami leyli qabra. hiya addunya falaa tarkan ilayha walaa tajcal laha fi lqalbi qadra wamud yadaaka lilraxmaani dowman farabuka lan yarudda yadaaka sifra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.